komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu marka hore u mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala sidii nabadgelyada iyo wanaagga lahayd ee ilaahay inoogu soo dhameeyey diiwaangelintii ama dubufuristii diiwaangelinta aynu hadda soo dhammaynay. waxaa kale oo komishanku u mahadnaqayaa dhammaan ka qaybgalayaashii ama ka qayb qaatayaashii diiwaangelinta oo ay ugu horeyso xukuumadda jamhuuriyadda somalilan, qaaraan bixiyaasha ama beesha caalamka ee inaga taageera arrimaha dhaqaalaha, arrimaha farsamada iyo arrimaha dimuqraadiyadda ama dhiirigelinta dimuqraadiyadda, bulshada rayidka, jaamacadaha, shirkadaha, bulshaweynta somalilan, ciidamada qaranka oo runtii awoodda ugu weyn iyo nabadgelyada ilaalinteeda ka qaatay, runtii xusbiyada qaranka iyagana waa u mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd ee ay magaranaysaa noola shaqeeyeen, goob kasta u joogeen, meel kasta ay nabadgelyada iyo xasiloonida ugu ilaalinayeen taageerayaashooda. iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay halkaa inaa ka sii wadaan xusbiyada qaranka oo nabadgelyada iyo xasiloonida aad runtii ku dhiirigelisaan kuna ilaalisaan taageerayaashiina. marka komishanka doorashooyinka qaranku sida lala socdo wuxuu soo kordhiyey adeeg runtii ah in dadka muddadii 16 kii ka dambeysay reer somalilan ee guurguuray ee magaalooyinka u kala guuray in fursad la siiyo ay ku bedeshaan degaankooda. marka bisha 15keeda waxaa la furi doonaa kaadh bedelkii oo ah degmo ilaa degmo. dadkii aanay ka khaldamin, qofna degmada gudaheeda kama bedelan karo, laakiin degmo ilaa degmo 23 degmo ee dalka ayay u kala bedelan karaan. waa inuu joogaa degmada uu runtii u bedelanayo. sababta waxaa weeye annaga iyo ummadda iyo ilaahayba qofku wuxuu sheegayaa inuu soo guuray oo ka soo guuray degmadii oo degmadan degan yahay. marka inuu degmada uu u bedelanayo joogo weeye. goobta shaqadu ka socoto inuu tago oo uu yidhaaho goob heblaan doonaya kaarhka in lay bedelo, degme heblo layga soo bedelo, degmadan lay bedelo, goobta nambarkaa ama magacaalena laygu qoro ayuu inanka ku odhanaya. waxaa kaloo iyana jirta in dadka kaarharhku ka lumeen oo in badani ay kaarharhkoodii ka lumeen. marka komishanku iyana wuxuu u sameeyey inay kaadh bedel helaan oo shahaado ay ku codeeyaan la siiyo oo halkii kaadhka u gelaysa. iyaguna waxay caddaynayaan in kaadhkii lumay. siyaabo badanoo wax loo caddeeyaa jira. marka ta ugu muhiimsan ee uu komishanku dee qaban karaa hadda gaari karaa waxa weeye inuu qofka dee dhaar ku aamino oo qofkaas uu ku dhaarto inuu kaadhkiisi lumay. markaa waa loo bedelayaa. shuruudaha haddaba labadaba looga baahan yahay, labada oo ah goobedel oo ah degmo iyo degmo ama degmo ilaa degmo, iyo kaadh bedel ah qof kaadhkii ka lumay oo meeshiisii ama isla degmadiisii meesha ay ka taallo tegaya oo codsanaya in kaadh la siiyo, isagana loogu qori doono halkiisa. haddaba shuruudaha laga doonayo labadaa qof waxay yihiin: waa inuu joogaa degmada doorashada uu rabo inuu u bedesho, oo aanu joogin tii uu ka soo guuray, tii uu soo guuray uu joogo. waa inuu tago xarunta ugu dhow ee shaqadaas ka socoto. waa inuu soo qaato kaadhkiisii hore si looga bedelo kaadhkaas. waa inuu buuxiyo foomka codsiga yaalla goobta ee inamadu hayaan. waa inuu caddeeyo sababta uu degmadaa cusub ugu soo guuray. marka iyaduna de waxa weeye intaasoo shuruudood waa laga rabaa inuu goobta la tago weeye. shuruudaha looga baahan yahay qofka kaarku ka lumay
waa inuu yimaado xarunta ugu dhow degmadiisa ee shaqadu ka socoto, waa inuu buuxiyo foomka codsiga ee in kaadhkii ka lumay, waa inuu ku dhaarto inuu kaadhkaas ka lumay aanu haysan. marka sidaa darteed waxaanu bulshada ku wargelinaynaa bisha 15keeda bishan labaad 15keeda inay ka bilaabmi doonto 120 goobood oo dalka ku yaala. runtii markii hore waxay degmooyinka qura laga qabto, laakiin commissionku markuu eegay baaxadda iyo dhulku intuu isu jirjiro tiradii waa la kordhiyey, aad baa loo kordhiyey iyadoo xuduudaha weliba si gaara loo eegay. marka 120 goobood bay ka qabsoomi doontaa. muddada ay hawshaas soconayso waa 10 casho oo goob kasta ay oolayso iyo 4 casho dheeri ah oo ay ooli doonto 6 caasimadood ama 6 degmo ee caasimadaha ku yaala. marka sidaa loola socdo. waxaa muhiim ah inaanu iyadana iclaamino dadkii la diiwaan geliyey 2020 iyo 2021 inaanay iyagu horta marka hore kaadhba haysanay bedelaan oo kaadhba lama siinin, kaadhkooda way u iman doonaan ama kaadh ka lumay oo dee ay bedeshaanba aanu jirin. kuwa qolada degmo ama goobedelkana inaanay ka mid ahayn. marka waxaan u sheegaynaa sanadkan ciddii diiwaangelinta gashay inaanay ku jirin shaqadan la qabanayo, qofna inaanu ku lugoyn, qofna inaanu danihiisa u baabi'in. kaadh ma bedelan karaan. waxa bedelanaya iyo waxa guuray waxa weeyaan 2016kii dadkii diiwaangelinta galay oo keliya. ugu dambeyn waxaanu shacabweynaha reer Somaliland ka codsanaynaa komishanka doorashooyinka qaranku xil qaran buu hayaa, xilkana ummaddu u hayaa, ummadduna iyadaa leh shaqadan, dhammaanteen bay inaga dhaxaysaa. adeegayaal baanu anagu ka nahay. haddii aan markaa dee laysla garab taagin oo lagu taageerin komishanku dee ceel ma biyeyn karo ama kama geeyoon karo. sidaa darteed waxaanu codsanaynaa in xasiloonida la ilaaliyo, in ma garanaysaa loo dhega nuglaado awaamirta komishanka, in la soo dhoweeyo dhallinyarada jaamacadaha laga keenay, in lala shaqeeyo ciidanka amniga ee u heegan ee habeenkii iyo maalintiiba u soo jeeda, in dhammaan wanaagga laga eego iyo waxa komishanku hayo wax cid gaari leedahay maaha, waa hawl qaran qarankoo dhan ka dhaxaysa. sidaa darteed waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa shacabweynaha oo ka baryaynaa in sida ugu wanaagsan ee ugu kalsoonida badan ee ugu xilkasan dhammaan loola shaqeeyo howlwadeennada komishanka. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi.